تنفذوا في أقدار السماوات والأرض فأنفذوا ولا تنفذوا إلا بالسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ. صدق الله العظيم. أنت مركورة مقعد ولا شيء؟ مريم حسن محمد. مريم حسن محمد ما شاء الله. مريم كورن دكسي قرانك وأوحي سامولنا كورن دكسي قرمك وجودن بيس. مرة. محا uga joogta marka dugsi uga hartay ya maxaa uga hartay dugsiga isaga dhaartay waa xanuunsadayna korantay qaba ma ka waran bal abti marka korantada markay ku qabatay intaas kuma ka quraanka xaga maris quraanka arrahmaan le maray arrahmaan maris ma sha Allah marka ka waran dugsiga iyo ilmiha ala dhiganaysay saaxiibada ma waxay macalinka saaxiibadii waa wixii macalinkeen waa wixii saaxiibina leeleel maraba inaan dusulu dhigtan maraba insha Allah wa fiicnata waxa iiga warantaa marka bal adiga jirkadaada ka waran say lagu hayaa hadda caadi inaan hadlaysa loo jeedaa laakiin dibka aan qabto maxaa ma noo sharxi kartaa ya say lagu hayaa xanuunka ku hay maxaa korantay balaawad muddo rabaa soo jiri laakiin gacantana kisto markii qalanku ay dhacay intaas koronto ku leeyahay koronto markii ay muddo koronto markii kugu dhigtay gacanta waa ka dhacay qalanka markii saan qabsar way dhacay laakiin waxa aanaysa markaas هل أسبوع ما في عندنا مثلا قرطة نقابة إيه؟ هل أسبوع ما يسوي إيه اللي هذا مركز قلنك أنا بحط قرنا جعنتي قلنك مركز أنا كدي بدر أنت مركز يدعي لي أنا ومعناها أو اختارن الأدم أبت كدي مركز كورن هاي يا أبي ولا لا كل شيء كورن بل هذا سنغط حالتي وفي عنك هذا الحمد لله مسوع كرتا أو هذه كورن علمية اللي ديري جرتي كورن بل صعد كذا كورن هذا ما صعد كرتا ما هاي فدي كورن فدي لاكس كسر وسحل كرا صح لكن وين لو كلمة ما جمعها ملك أمس كورن لغها ساس هذا كوجرين عيان حنون مكوها حنون ماي صح هذا لقتي اللي قاعد ربح مفهمي درهم ولا ذا درهم ولا ذا هاي لكن لغيه هذا هي تمر سان لو فيدنا الصلاة تدوي هذا لا ما إنها في الشدوى أود دقائق كمان كل الأبرك ومريح عذركم عنها زائدكم مش لو هاي ما شاء الله مريم كورن بل إيش قاتلتي لوجي عسكر دي بل محرجينيسا دتك الصوماليات محكرجينيسا واتكفلانيسا محكفلانيسا دتك الصوماليات هذا كثير صناعي محاديه لهاد أو شيء لهاد سومالي waxa uu sheegay lahayd inaan macnaha awal anfiyooway hadana macnaha qof sariir saaran iska hayo oo awood sariirtina ka soo diga leedahay inay ku soo duciyaan isna ku soo joog soo duciyaan inuu ilaahay caafimaad ma sha Allah bal quraanka iska akhris فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. السلام عليكم ولا ليال ملك صاد عالم كجوجتان مريم حسن محمد وجبر صوماليات أو مجالات المقدسين لو كانوا وحكيت مد أفجوي هوية ديابهد وضد صوماليات وكمده ضدك نلوش عادي جا كجري waxaa dhacda maalin maalmaha kamid Maryam Yariisay oo ahayd gabar ardayad ah oo 8 sano jir ah oo dugsi quraan dhigata inay koronto ku dhigtay korontadaasi oo markii dambe saameyn ku yeelatay in dhammaan qaybaha hoose ee jirkeeda tabarti ka dhamaato oo aysan socon karin oo aysan suuliga tagi karin oo aysan iskeed isku maamuli karin galaaskan biyaha ah xataa waa ku adkaato runtii inay gacanteeda ku qabsato iyo cabto walaalayaal marka barnaamijkeena maanta Maryam Yariisay ayaan jecelnahay inaan ugu gurmano barnaamijkan ku cilba codkaaga ee calan qaran ee walaalaha Soomaaliyeed ee dhibanayaasha amar baan ku soo garab istaagno waxaan jeclaa marka hore bal inaan hooyada soo dhaweeyo hooyo nooga waran gabadha xaaladeeda iyo intii ay hadda noo sheegtay waxaan ugu dareysay anigoo magacayga Aziz Xasan Cali oo degan degmada Afgooy gaar ahaan xaafadda dhagax tuuran deganaa
marka gabadhaan ayadoo iifiyooba macnaha oo dugsi iyo iskool dhiganaysi oo cudurba aan qabinaa macnaha koronto qabatay koronto markay qabatay marka isha adiga waxay ku soo koronto markay qabatay taa isticmaal camal ay iifiyoobay maalinta milabsaay macnaha tahawada ku maqnaad ay soo xsaneed marka dambe goor markay wareysanay kaligeeda guriga jidka koronto markay qabnaysi mar dambe la wareystay ay sheegtay gabadha markay dambe waxay bilaawday inay qabatay camal ay ku naqato oo wixii qalal ku naqdaan هذا سيرس هو معناه مد عذر كذا صدق جيد ما استوعب بدنا نجي تا مدينة كمية هاي استوعب مدينة نجي مدينة كان جي بحاول يدري أنا استوعب كلا نربي مرة مرة وجي مر كي وجي بحاول حاسس صار قبل محل إسكام توصار إسكام كياليد إسكام كان جي قبل بحال ده معنا قبل دان مسك هذا معنا برو قتال دلك وحمله وقابكره بس داوين يسوقر وكالمات يعني داوينك markay soo qorka bacdi sheegadan wuxuu dhahay sheegaday gabadhan markay macna inta ku soo celin gabadhan ay dibadaha loo qaado sidii marka gabadha hadda muddo hal sano ay ku jirantay isku dab jiidmeen marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsadaa meel kasta joogto dalkii dibadda inay gabadhan caafimaadkeeda garab igu siiyaan dad isku masaakin isku dan yarna waan haytaa lacagtan marka isbitaalka soo qaadaan oo dariskay iyo muslimiinta soo qaaramaan ku soo wadeen anaga waxaan ahay dad isku danyar waxba haysan xoogstiska anahay marka gabadhii awood hadda maanta anaga oo banaan ugu qaad diyaar ku saarna ma haysano marka muslimku waxaan ka codsadaa inay garab igu siiyaan meel kasta ay joogaan qofkii in ay caawinay waxay iga soo xiriira telefoon oo furiis 6 ah furaha 6 waay eber 3 konton 3 soddon u dambeys mid kalena waxa waaye 8 waay 72 89 ilmo kale u harata haamila ah hadda aniga 8 bil u raadsan ku leeyahay markay oo saxaarada la macnaa ay qabato qof la xambaaray oo ilaa hadda gabar yar oo cunug yar oo muluq ma mogtay waa qof weyn oo 9 jir ah waay marka dhibaato weyn oo qaba macnaa qaado wada dhigooda hadda habeenkii markii la seexdo dhinacadiga u gadinata magdiisa ka saqdax ila luga ay dhinacii gadil waxay kula lugaha ifidi adigoo macnaa wax uu qabanay kaligeed bis gadii karta saqdax marka dhibaato far badan oo qaba maadaama ay qof weyn ay tahay oo cunug yar oo saqiir ahayn haddii aan waxa haysto macnaha dhaqaatiirtan hadda macnaha oo muqdisho joogan oo sidii Turkiga camal dhaqaalaan ku geeyay ma haysto Turkiga macnaha qarshin sayid oo badan yahay ogtahay marran geesalahay marka wax hadda aan ku geesto ma bahaysto ilaahay caafiyo Maryam Yariisay waa sida walaalayaal aad ku daawateen muuqaalka ilaahay waxaan ka baryaynaa inaan noqono kuwa is caawiyo kuwa is garab istaago anagu hadaan caalan qaranna waxaan u taaganahay dadka Soomaaliyeed ee dhibaataysan qof u dhibaataysan iyo mujtamac ahaan u dhibaataysan inaan u kacno u gurmano mas'uuliyad farad kifaayahna aan gudano insha Allah qof kasta oo Soomaaliyeed waxa uu furan inuu caalan qaran ka mid noqdo inuu walaalaha caalan qaran ku soo biiri karo waxaan idileenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anigu hilmaaminna mahad celiyo walaalkay xalane iyo maxamed cabdi shakuur oo muuqaalkan gacan weyn ka geystay dubistiisa iyo dabcan soo saaritaankiisa anigu cabdi shakuur idin soo jeedinayay intaynu mar kale kulmayno ku faan Soomaalinimo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh